gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere ayaa gaadhay degmada Qoriray ee ka tirsan gobolka Sool waxaana ku weheliyay mas'uuli ka socota hay'adda NRC oo deeq lacageed gaarsiisay dadka danyarta ay isaga kala dambeeyeen abaarihii kala duwanaa ee ka dhacay waddanka khaasatan abaarta imika ka jirta gobolka Sool. ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay odayaasha iyo waayeelka magaalada Qoriray iyagoo laga mahadceliyay gudoomiyaha gobolka iyo hay'adda soo gaarsiisay deeqda. sidoo kale odayaashu waxay ka hadleen arrimaha bulsho iyo baahiyaha kala duwan ee ka jirta magaalada Qoriray. gudoomiyaha gobolka oo hogaaminayay dhammaan waa soo dhaweynaynaa waadna mahadsantihiin dhammaan waad mahadsantihiin hadday tahay gudoomiyaha gobolka oo hogaaminayay hay'adda hadday tahay hay'adda soconaysay intaba waa soo dhaweynaynaa waxaanu kula shaqeynaynaa nabadgelyo waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan boqolkiiba boqol khayr allah idin siiyo waad noo timaadeen annaguna waydin ajiibnay sidaasay inoo tahay hay'adda waxaanu doonaynaa wixii kale oo ay nagu xidhi karto inay nagu xidho sidaasa inoo ballana anoo ku hadlaya codkayga hore duqan laascaanood in magaalada hay'addu u qabato ay MCH-ka wax ka qabato iskuulka ay wax ka qabato hadday riig keeni karto biyo gelinta magaalada riig ay noo samayso waxyaalo fara badan ay wax ka qabato laakiin haddii waxyaalaha noogu daranin waa MCH-ka iskuulka wax ka qabato iyo riigga saddexda arrimood baa noogu daran aad iyo gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa maanta iyo maalin kale ba aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa hay'ad kastana waa soo dhaweynaynaa ku yarna waa soo dhawan jiray MCH-ka magaalada laba waxa u dhisan qol yar baa u dhisan labada qol dayr ma laha waxyaalo fara badan baa ka dhiman waxa dhiman waxa weeye MCH-ka waxa loo magacaabaa inay tahay meel maaragtay dumarka iyo ay ku umulaan waa laba qol labada qolba way buuxaan meel hal sariir laga dhigi karaa ka bannaan sidaa darteed waxaan u baahanaa baahidayada ka mid ah in dhismaha waxna looga qabto waxna loogu daro inta annagaa dhisanay magaalada dhisatay hay'ad dhistay ma jirto hal hay'adoo dhistay ama wax ku darsatay ama shilin kuli ma jirto magaalada dhisatay iyo dadkeeda diba qurba joogta waa ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere. ilaahay ma hadle suukan keenay maanta halka sinabada hay'adda NRC Norwegian Refugee Council oo ah hay'ad caalami ah inay deegaanka Qoriray ay ugu tala gashay inay deeq lacaga waliba kaasha inay dadka jilicsan ee agoonta dumarka maatada dadka waxba heli karin soo barakacayaasha dadka dhibaatooyinka saameeyeen xoolo abaaru kaga dhamaadeen inay ugu deeqdo tiro dhan 250 qoys oo reer Qoriray oo dadka deegaanka 250 qoys inay siiso bishiiba lacag dhan $85 runtii waxaan dadka deegaanka Qoriray ka codsanaynaa waxay kow ka tahay arintani deeqa fara badan dad maanta si wanaagsan ula shaqeeysan hay'adana dhammaan hay'aduhu dhan way imaanayaan halkan waan idila shaqeyn doonaan hay'addan NRC oo runtii wax badan deegaankeenan iyo gobolka ka wada waxay Qoriray u garatay maanta inay noqoto meesha ugu habboon oo tirada inta la eg 250 qoys oo ay ka diiwaan geliso way ku mahadsan yihiin runtii dadweynaha Qoriray waxa ka codsanayaa inay si fiican ula shaqeeyaan hay'adda soo dhaweeyaan nooma yimaadaan deeqa nooma yimaadaan caawimooyinka laascaanood iyo magaalooyinka u dhow lagu qaybay nama soo gaaraan maanta arrinkiini waxa ka jawaabtay iyo cabashadiini NRC ba degdeg uga jawaabtay runtii mahad gaaran u celinaya hay'adda NRC waxaan kaloo dadweynaha reer Qoriray ka codsanaya waad aragtaan xilli adag baa lagu jiraa deegaanka kaliya ilaahay haba yaraadee roob yar ka daaybatiin biyo yar oo baraagaha ay u galeen sagad iyo salaan iyo wax doonaan ma noqdeen meel kale oo wadankeena dhan gobolka Sool intaas kala gashay ma jirto ilaahay dadka idinka ma jecla laakiin waa calaf gaar oo idsiiyay waa arrintan idinku eegayo runtii oo imtixaanka adduunka ka mid ah marka ummadda kale wax aan haysan adig kaliya lagu siiyo waa wax weyn taana waxaan ka codsanayaa idinku la talinayaa ummadda soo guurtada idin timin dadka biyaha idinka doonaya waxa yar ilaahay idinku deeqay inay dadka yeelan dadka siisaan qadar Tarabi Somali News magaalada Laascaanood.